السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام دمان صحابتي قالقة الصحابتين قالقة سيتيهن مفيعنتيهن من بتقبتين إلهي إذن كيس ويدي رجينا أميل كستودة دونك كجوكتان خير إيه فرحات لسودة وهذه welcome سكسو نقط كلو وناكسن وماموانا إيه مركلة سودة وهذا welcome وحان جوغنا channelka dumarka Soomaaliyeed waxaan wadaa tala kale talawaati ilaahay ila taliyo dhan xaggaana imaanaysa hadduu ilaahay yiraahdo maasha allah taladan waxaa soo dhiibatay gabar walaasheena waxay tiri waa tala caafimaad marka ila taliyo dhan inta waa keeni kartaan insha allah taladu waa tala caafimaad talawaati ilaahay waxay tiri gabdho waa idin salaamaa dhammaantiin marka hore waxaa idinkaga digaa qaladka aniga ee qabsada inuuna adinka idinku dhicin anigana wixii talaa isoo siiya maamuwaano ugu horeyso gabdhaha gabadha waxay tiri waa idin salaamaa bacdal salaan waxay tiri waa lay guursaday waxaan dhalay tiri ilmo yaryar ilmihii waxay tiri waa isku xixigeen marka waxaa dhacday tiri maalin maalmaha kamida waxaa laygula taliyay tiri talawaatii ilaahay waxaa laygula taliyay tiri inaan ilmaha iska xiro hafi bala waan dhahay tiri maadaama dhaqaatiirtii wixii nagula taliyeen inaan ilmaha iska xiro ilmihii waxaan damcayay tiri inaan wax isticmaalno anigii odaga waa layga diiday wuxuu yiri tiri waxaan wax fiican maan iga dow hafi bala waan dhahay tiri cirbadaan doortay tiri marka meesha markii la tago clinic-ga oo family planning-ga waxay ku leeyihiin chip maad rabtaa coil maad rabtaa cirbad maad rabtaa kaniini maad rabtaa kaniini ilmo yaryara ii joogay tiri waxay ila noqotay inaan wadwadi karin oon iloobayo chipkana waa ka baqay tiri wax jirkeyga la dhexgelinayo coilkana waa ka baqay waxaan isiri tiri cirbada ama ku roonta hal mar isku dhufay dhaqaaqa waxay tiri luuqadana si fiican ma aqoonin goor galaba hoon daahsanayna way ahayd sina waa iskugu yara buuqsanayo howlaha Soomaalida waa iska badan yihiin tiri hafi bala waan dhahay tiri waxaan rabay inaan isxiray tiri 3 bilood 3 months iyo 3 years ay kala tahay sax waxay tiri anigu wax laygu duray ma aqaane wax un bil ahayna laygu duray tiri waayo 3 bilood waa la noqnoqdaa every 3 months aa noqonaysa marka waxay tiri cirbadii waa laygu duray hafi bala waan dhaa warqadihii boorsadii igu jireen waan dhumiyay adigu sanad markii ka soo wareegtay oo dhiigna igu dhacayn aniga dhan aan is yara bedelay si ugu xanuunsaday si u bararay si noqday aan dhakhtarkii u tagay meeshii waxaa taalay tiri 3 years 3 sano inaan duranahay waayahay dhib male iska sabar waxaan wadwadaba 3 sano dhamaatay tiri 3 sano markay dhamaanaysay tiri horta odayga waxay dhahay cirbada ma ka dhamaanaysa mi cirbadii ma lagu duraayo miya mar kale hal mar aa la duro goorma waa way daba dhigtay tiri maalinta dambe sanad markay dhamaato yiri maxaa dhacay cirbada meeqa ma waligaaba is durtay xooga odayga wuxuu bilaabay tiri muran asahana awli dhahay tiri dhakhtarada warkeeda qaado oo bal arrinka farsamee waxay tiri sanada dhamaad waxaan ku yiri 3 sano waa cirbada asigoo afka dhuudhuubay 3 sano 30 sano la noqotay ayuu haye yiri tiri mardaba ha sameeyay mardaba ha is durin mar xooga cirbadii waxay tiri siba uga yara qawaafe adiga 3 sano dhamaatay carba dhiig keen dhakhtarkii aanu noqday 3 sano waa dhamaatay dhiig ma haayo waxba ma hay maxaa tala ma naqaano kliinigi layga durayaan tagay balan kalaan ka qabsaday cirbad kale ma rabta cirbad beelayaal yahow cirbadii hore maxaa qaldan cirbadii horeba damage-keeda aniga aan may way dhacdaa time ay qaadanaysaa cirbad kale inaa rabtaa kuma war cirbad dambana ma rabna cirbadan dhibaato ii keentay wajigayga wuu qaribmay korkayga wuu buurtay neerfisaanahay reerkii waa ku buuqanahay maxaa qaldan may way dhacdaa hormoonkii xoogaa yar taabanaysaa heblow okay ata hay wax daawo ma siinaysiin oo cirbada jirkeeda ka dhaqdo maba jirtaba wax daawo ma jirto waxa igu tabacdeen aniga wali ma gaarin qof oo dhiiga ka tagay maxaa qaldan war way dhacdaa dhiigi inuu ku soo noqon way dhacdaa waagi warqadaha lagu siinaa ee ku jirtay horta gabdhaha kula tali lahayd tiri gabadhii u socoto clinic oo cirbad isku durayso wax warqada u akhriyo inay wadato warqad aadan damage-keeda akhrinina ha isku suubinina cirbadaheeda aniga waxay tiri dhakhtarkii waa ii miimiilay
kliniga waxay dhahan waxba kuuma qaban karno laakiin tu kale haddaad rabto kugu dhufo karna oo ilmaha weli iska ilaalinaysid odageygana cirkuu beebi oo soo dhacay beebi ilmihii oo yar oo noo joogo weli beebi kala rabaaya tiri maana ugu xumeynaa moogi dhiig ma kuu haayo meeshaana kuusoo dhufug leeyahay gb-gaan ku dulmeeraystaa tiri waa gabadha reer ingiriis dhakhtarkiiaan ku dulmeeraystaa waxaa iriya tiri hadda halee diro qoolo ii fahansiiso cirbadii magaceedana ii soo qabta haddii aniga dhiigga layga qaaday nolosheedii inta ka hartay aniga waa layga galdarnaaday ma aana dalbanin taas aniga weliba 3 biloodaan talbaday 3 bil 3 months meelaan ku qortay 3 months waa u dhiibay luuqadda qof 3 months iyo 3 days kala garan waaye malaha 3 sanaba ha noqote maxaa ii talaa dhiigi mahaaye dhiigsa la duray oo noocaas loo duray mala soo celi karaa adaan ku weydiiyey maamwaano marka horta wallaahi birth control waxaa la leeyahay sideedaba lama amaanin gabdho arrinkaasaa inoo yaalo wixii aa ka dhihi leedeen ka dhaha u duceeya dhiirigeliya walaashiin wayna la joogtaa iyadana amuurta kheyra laha ka dhigo dhib ma laha dhiigga horta haddii oo hormoonka la taabto saasoo kale birth control oo taabto waa la helaa inta badan wax nadiifiya dhirtaaba nadiifiso ana waxaan dhihi lahaa qudaaraha badso muriingada qaado shataabri qaado intaan la hadli karana waa la soo hadlay gabadha gabar walbo saasoo kale isdurtana runtii waxaan dhihi lahaa bariya qudaaraha badso bambeelmada sheyga la yiraahdo waa taqaaniin amalena grapefruit ama bambeelmo badso iyadu way baabi'isaa birth controlka waxbaha ka walwalin mideeda kale quraan badan isku aqriya ilaahay barya sadaqa la baxa kurbaya imaanin walwaliyo imaanin dhakhtarkana runtii way fiican tahay markaa u bixaysid in lagu raaco cirbadna ma fiicno coilkaaba la qaata asiga naftirkiisa ma fiicno infection oo geliyaa seviga makaanka wax fiican ba anigu maaqaan inta birth control la isticmaala midaan sibooda ma leh ilaa bacdaa dhuuqsa maahane marka bacdaa dhuuqsan xaaji macoo ma jeclo marka gabadhaanba la taliyaa waana yara walwalsantaa aniga gooni waa ula soo hadlay ilaahay qalbiga ha u dejiyo iyadii intii islaama ee cirbad inta isku durta dhiigga usoo noqon waaye adinka dhanna waa idin leeyahay waxba ha ka walwalinina iyaas caadada way iska tagtaa marka waxaad isku durtay waa wax jirkaagii la dagaalama inaadan caadoonin inaad ka caadooto oo waxaad ka caado keentana waxaa keeni kara wixii uun jirka ka baxo marka haddaad dhiig laan tahay bixi maayaan wuxuu oo ilaa dhiigaad ku caadooto male hormoonka hadduu xoog iskugu dhex yaacay caadoomaysid haddana ilmaha ilaahay baa bixiyo laakiin waa wax difaacaya inaadan uur qaadin oo duqeynaya ugxaantaada 3 sano lasoo dhaafay marka inuu jirka ugxaan kala koriyo oo birth controlka uu ka baxo ayuu xaalku noqonaya marka allaha kula garab galo isla tacaal isdabiib isquraami walaalahana waa kuwan waxay tala ka dhihi lahaayeen arrinka kugu dhacayna waa arrin aad kolley gabdhaha dhan uga digaysid aniguna waa uga digaa idinkana uga sii diga gabdhaha ha layska ilaaliyo cirbadaha laysku duraayo haddii laga fursan waayana cadada lagugu duray fiiri intay kugu jirto jirkaagana nafaqa fiican qaado hadday ishaleesho da'dii oo sii durgayso nafaqadii oo sii baaba'day hormoonkii oo maaragtay lasii kala tuuray yaa anoo xumaaya xuni qaniinay wa hormoonkeeniyo awalba iska qaldanaa haddii haddana sokor iyo waxaasi aan ka buuxino birth control ugu darna de meel kasta adiga haddii layskugu kaa tago maanta waa ku dhamaatay dhowr qofood hadday ku garaacdo lagu arki maa marka hormoonkii wax badanaa garaacay oonkeenaa badan nafaqadeenaa yar jimicsigeenaa yar cuntadeenaa qaldan haddana waxaan kusii darsanay intii yareedo actifeka noo ahayd hormoonkii wax sii kala tuuraayo oo chemical ah markaa baritaasa ka walwalin walaalahana waa kuwan fikrad waxay nagu darsanayaan waa welcome aniga waxaan gaar kuu dhihi karo waan kuu dhahay isla tacaal wanaagsan walaasha walaal isla tacaal bilowday waaye ilaahayna baryayso ilaahayna barya annaga dhan aan wada barino arrinkan aniga waxaan dhihi lahaa si fiican ha looga fiirsado wax bareesharana iyo kaaga imaanin xagga sawjkaaga u sheeg saboodkaagaan rabaadhe ducadaadaan rabaadhe dhiirigelintaadaan rabaa sawjkaada ku dhil laakiin hadduu maanta oo dhan meel la soo istaago waad isdurtayaay inaad dhashid ma rabtidaay anaad ila goynaysaahe oo maanta cillad kaaga dhiga caruur aan dhalanaynin waqtigeeday ku dhalanayaan caruurtee taasna waa arrin kale bal micnaha fahansiiye
midda kale xataa dhakhtarkii u noqo habar yar markaan gaarkuula hadlaa waan kaa iloobay kaliinigii kugu durtay cirbadii magaceedii soo qaad warqadaha sida qof cusub oo hadda lagu duraayo camal warqadaheedii qaado qolo kuu akhrisa u geyso odagaaga hadduu kugu dhaamo luuqadana u geey iyo akhri dheh aaladda geli ma wada qaadaa isiiya dheh taariikhda intay aheedood igu durteen marka waa kaasaa dadkan aaday u jecel yihiin beebi la xakameeyo iyo beebi aan dhalanin iyo dad aan dhali karaynin iyo waa iska jecel yihiin taranka ma jeclo dadkan weligaa haddaadan ilmo dhalin orod ilmo dhal wax ku dhahaa maleh wiil cadii gabar cad ha kuu dhashaan wax ku dhahaa maleh inaad dhashana waaba laga soo horjeedaaba ilmo la dhalane reer baadiinimo iyo doqonnimo ay u arkaan waana guusha adduunka ugu wanaagsan oo ummadda islaamkan usii fiican allahna badiyo na barkeeya markaa bari adoona welwelin xoogaa neerfis ha noqonin ayaga markaa u tagtana aqli wax uga qaado cirbadii haddii shaki xun uu kaa galay exactly filekaaga computerku la yaalaa 3 sano meel dheer ma jirto waa tanaa u noqo kiliinigii fariiso ballan kala qabso waxaad tirahdaa dhegeysta hadda kor meeshaana laygu duray taariikhdii la duro soo saara iisoo print gareedha warqadaheygii cirbadii naftirkeedana isiiya dheh warqadaheedii sidii lagugu duray oo shalay warqadaheeda laguu siiyey ammaantana laguu siinaa side effectiga inaan bartaan rabaa dheh anigu dhiigii soo celin waayey waxaan idinkugu fadhiyaa dheh wixii side effectigaas ahaan kara inaan barto 3 sano waa waqti fiicanoo luuqadda lagu sii fahmo marka adigoon buuq furin oon dagaal gelin seexa tartiibka qaada warqadahaaga waa kula fiirinaynaa aniga xataa gooni iigu soo dir waa kula fiirinaa marka ilaahayna dhiigga ha soo celiyo dabiibka hadda bilaabaysidna allaha kugu guuleeyo haddii ilaahay hadda dhiiggaada kuu soo celiyo oo kuu saxmane cirbad dambe ha umaleema inaa u dhawaanayside garabkaaga allaha galo saaxiibada waxaa dhihi lahaydeen walaasha waa kaasaa waa idinkaga digtay cirbad waxay tiri maya waxay noqon doonta ilaahay baa og hayahay cafiya caafimaad ma soo koobi kara cilada cirbadda ay keento ama uu keena koylka ama keena jibka ciladahaas ilaahay idin dhib yareeyo qofkii isku duray qofka dhiiggiisa hormoonkiisa dhaawacay ee buubsaday allah idin fududeeyo wax la baabi'in karo waaye dhir fiican raadso shaaxiyo raadso qudaaro raadso isla tacaal qur-aanka ilaahay raadso habaryarey macaani allah kaa caafiyo dhiiggaagii oo nabad qaba allah soo celiyo inta caadada ka maqan tahay oo haweenana allah u soo celiyo sababtay ku maqan yihiin ma naqaane allah soo celiyo hayahe waa inoo topiga kale hadduu ilaahayraa walaasha ha la siboodo aada idin salaamaa dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu